warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar iyo dagaal toos ah oo maanta ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho waxaana haatan la sheegayaa in ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay wadaan howlgallo ay ku soo afjarayaan weerarkaasi culus. Dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii weerar toos ah xabsiga dhexe uu ka bilowday kaas oo ay soo abaabuleen xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab oo la sheegay inay ku xirnaayeen gudaha xabsiga dhexe ee Biyamundo qaybta la yiraahdo oo ka tirsan xabsiga dhexe ee Xamar. waxaana sidoo kale la sheegayaa in israasaasiin xoogani ay dhex martay ciidanka ilaalada xabsiga dhexe iyo sidoo kale raggii hubeysnaa ee markaasi ku jiray xabsiga dhexe. warar hordhaca oo aan helayno ayaa sheegaya in qaar ka mid a maxaabiista ay heleen hub iyo bambooyin kadibna ay u suurto gashay inay ka dhex dagaalamaan xabsiga dhexe ee Xamar. intaasi kadib waxaa xigtay in markaasi uu dagaal toos ah dhex maro iyadoo oona wararkii ugu dambeeyay oo helayna ay sheegayaan in la toogtay dhammaan raggii weerarkani soo qaaday oo tiradooda lagu sheegay inay ahaayeen ilaa iyo 4 nin waxaana sidoo kale la sheegay in raggani ay ahaayeen inay ku xukunaayeen dil toogasho ah kuwaas oo lagu helay in ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. sidoo kale waxaa weerarka ku dhintay 2 maxaabiis ah halka ay ku dhaawacmeen 2 kale sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay iyo xogihii aan helnay. xaaladda xabsiga dhexe ayaa haatan la sheegayaa in ay tahay mid degan waxaana gudaha u galay xabsiga ciidamada ammaanka dowladda oo howlgallo amni xaqiijin haatan ka wada. waa markii labaad oo xabsiga dhexe israasaaseen noocan oo kale ay ka dhacdo sanadii 2020 ayay ahayd markii sidan oo kale maxaabiis ku jirtay xabsiga dhexe hub ay u heleen isla markaana la sheegay in loogu qariyay raashinka ay ka dhex dagaalameen gudaha xabsiga dhexe ee Xamar.